kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirkii Muqdisho oo maalintii labaad galay iyo madaxda oo wali isku fahmila qodobada qaar ra'iisul wasaare Rooble oo go'aan culus ka qaadanaya maamul goboleedyada diidan mowqifkiisa xogta kulamo siyaasadeed oo xalay ka dhacay Muqdisho Puntland iyo Jubbaland oo ku gacan saaray dalab uga yimid midowga murashaxiinta kadib soo ifbixidda khilaafkoodii madaxweyne Farmaajo oo dalab culus u dirsaday madaxweynaha Hirshabelle iyo cali guudlaawe oo si cad u diiday in uu senator Muuse Suudi ka reebo tartanka aqalka sare filla Soomaaliya oo ka fiirsanaysa taageerada guudlaawe ayaan idin soo gudbin doonaa wararka kale waxa kamid ah amisom oo war ka soo saartay dhacdadii xanuunka badneed ee Shabeellaha hoose xilli ay qiratay in ciidankeeda ay si arxan darraa xasuuq uga geysteen gobolkaasi Mareykanka oo si lama filaan u shaaciyay inuu taageerayo qadiyadda ay Soomaaliland ku raadinayso madax banaanida iyo cabsi xoogan oo ka taagan caasimadda ee Galmudug kadib weeraro madaafiic ah oo xalay lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax axad ah 22 bisha 8 Agoosto sanadka 2021 barnaamijkan wararka Soomaaliya waa midaan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka hadaba daawada ka qayb qaadada booliska dalka iyagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadiina idinka oo ku share gareynaya baraha bulshada mahadsanideen aynu ku bilowno wararkeena waxa maalintii labaad galay shirka teendhada afisiuooni uga soconaya madaxda golaha wadatashiga qaran shirka ayaa waxa ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya shanta madaxweyne maamul goboleed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir shirka oo shalay si rasmi ah uga furmay teendhada afisiuooni ayaa madaxda waxa isku afgarteen ajendaha ay kaga hadli doonaan iyo maalmaha uu shirka socon doono maanta oo xada ayaa madaxda waxa ay u gudagalayaan ajendaha shirka oo ah dardargelinta howlaha doorashooyinka diyaarinta habraacyada doorashada golaha shacabka raadinta dhaqaalaha ku baxaya doorashooyinka ee aan wali soo xaroonin iyo sidii horay loogu wadi lahaa doorashooyinka ee dalka ka bilowday madaxda ayaa waxay isdhaafsan doonaan maanta talooyin ku aadan sidii si hufan ay markaasi ugu dhici lahayd doorashada xubnaha ka harsan aqalka sare iyo doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay waxaa jiray warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in dowlad goboleedyada qaar ay doonayaan in doorashada golaha shacabka lagu soo koobo hal magaalo iyo in la dhimo tirada ergada dooranaysa golaha shacabka halka kuwa qaar ay ka soo horjeedaan taas oo la filayo in la isla soo hadal qaado maanta iyo wixii kasii dambeeya shacabka Soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamka ayaa isha ku haya go'aamada ay gaari doonaan golaha wadatashiga qaran ee ka kooban ra'iisul wasaare Rooble madaxda shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir si kastaba waxa wararku ay sheegayaan in uu jiro qodobo la isku marlaayahay oo madaxdu ay markaasi u kala safan tahay sida arinta in wax ka bedel lagu sameeyo heshiiska iyo sidoo kale in la ballaariyo shirka xubnaha ka qayb galaya arintaasi oo si weyn la isugu hayo balse warar ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Rooble uu go'aan markaasi isagu qaadan doono dhinaca kale magaalada Muqdisho waxa saacadii la soo dhaafay xalay ka dhacay kulamo siyaasadeed kuwaas oo u dhaxeeyay madaxda dalka iyo waliba sidoo kale siyaasiyiin kale oo xildoona warar la helayo ayaa waxay sheegayaan in midowga murashaxiinta ay ku gacan saareen dalab ay u dirsadeen Puntland iyo Jubbaland xilli khilaaf uu hareeyay labada dhinac waxa ay soo taraya khilaafka u dhaxeeya midowga murashaxiinta Soomaaliya iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland khilaafkan ayaa waxa uu ka dhashay sida madaxda maamul goboleedyada ee u maareeyeen doorashada aqalka sare si gaar ah Ahmed iyo Siciid iyadoo midowga murashaxiinta iyo xubno taageerayay markaasi lagu soo dari waayay liiska murashaxiinta kadib murashaxiinta ayaa soo saaray qoraal ay ku dhaleeceynayeen sida ay ku bilowdeen doorashooyinka dalka gaar ahaan aqalka sare waxayna toos fariin u direen madaxda maamul goboleedyada iyagoo dalbaday in kaalinta dowlad goboleedyada ay ku ekaato fududeynta iyo habsami u qabashada doorashooyinka waxaa xigay in shirka Muqdisho ka furmay loo diiday inay ka qayb galaan xubnaha midowga murashaxiinta oo dhawaan codsaday in kaalin laga siiyo shirka si ay kaalin ugu yeeshaan aayaha wadanka iyo go'aamada markaasi la soo saarayo xogo hoose aynu helayna ayaa waxa ay tilmaamayaan in madaxweynayaasha Siciid iyo Ahmed iyagu si cad u diideen in la ballaariyo shirka mucaaradkan ay ka soo qayb galaan wararku waxay intaas ku darayeen in Ahmed iyo Siciid ay aad uga xumaadeen warmurtiyeedkii dhawaan ay midowga murashaxiinta uga hor yimaadeen doorashadii aqalka sare ee ka dhacday
maamul goboleedyada dalka. xiisadan gunteeda ayaa la rumaysan yahay inay sabab u tahay iyadoo Siciidna la rumaysan yahay in uu isku soo sharaxayo madaxweyne, taasi oo si toos ah loolan uga dhex abuureysa isaga iyo waliba sidoo kale murashaxiinta ee midowga. xildhibaanada laga soo dooranayo Jubbaland iyo Puntland ayaa la fahamsan yahay inay aad markaasi isugu haleynayaan midowga murashaxiinta maadaama maamulada kale ay ku xiran yihiin madaxweyne Farmaajo. xaalka ayaa waxa uu yahay mid aan sahlanayn, isla markaana khilaafka labada dhinac ayaa laga cabsi qabaa in uu gaaro halkii ugu sareysay. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan, warqaa TV ayaad naga daawanaysaan. haatanna aynu fiirino. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe ayaa la filayaa in uu soo saaro liiska murashaxiinta aqalka sare marka uu soo dhamaado shirka golaha wadatashiga qaran, balse wararka la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu ku guul daraystay dalab uu u diray madaxweynaha Hirshabelle kaasi oo ku saabsan in liiska murashaxiinta Hirshabelle aqalka sare laga reebo senator Muuse Suudi Yalaxoob, iyadoo arintaasina si aad la isugu hayo. warar aynu helnay ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe uu ka biyadiiday dalab uga yimid filla Soomaaliya kaasi oo la xiriiray in liiska laga saaro Muuse Suudi oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne Farmaajo, isla markaana kamid ahaa hogaamiyaashii hayay ciidankii badbaado qaran la magac baxay ee bilo ka hor ka dagaalamay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. wararku waxay intaasi ku sii darayaan in liiska lagu soo dari doono senator Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle iyo Mahamed Amiin Sheekh Cusmaan oo kamid ah senatarada beesha Mudulood. dhaqanka beesha Mudulood oo aad u xoogani iyo magaca ay siyaasiyiinta ku leeyihiin beesha dhexdeeda ayaa la rumaysan yahay in darteed uu madaxweyne Cali Guudlaawe u diiday in uu hogaansamo dalabka iyo cadaadiska markaasi ay saartay filla Soomaaliya. madaxweynaha Hirshabelle ayaa dhinaca kala diiday in uu isku dayo markaasi inuu tallaabadaas qaado. sidoo kale waxa uu ka hor yimid qorshayaal filla Soomaaliya ku doonaysay in liiska lagu soo diro siyaasiyiin tartan adag gelin karin amaba la geli karin xubnahan. si kastaba Cali Guudlaawe ayaa laga yaabaa in filla Soomaaliya ku qanciyo inuu liiska ugu daro dhowr qof oo la siinayo kuraasta beelaha kale ee senataradooda lagu dooranayo Hirshabelle oo Guudlaawe uusan cadaadis badan kala kulmi karin. maamulka Hirshabelle ayaa hadda waxa uu yahay maamul markaasi khilaaf xoogan uu ka taagan yahay marka la fiiriyo siyaasiyiinta iyo waliba sidoo kale dadka kale ee waxgaradka ah ee kasoo jeeda gobolkaas oo iyagu si weyn u diidan maamulkan Hirshabelle majaraha uu u hayo madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe. qaybaha dambe ee wararka ayaynu isla soo gaarnay. amisom waxa ay warmurtiyeed ka soo saartay dhacdadii dhowaan ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalka midowga Afrika ee amisom ayaa qirtay in ciidamo ka tirsan Uganda ee amisom ay dad shacab ah ku dileen deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose kadib weerar qorsheysan oo ay ciidamada la kulmeen. war-saxaafadeed ka soo baxay amisom ayaa waxaa lagu sheegay in amisom ay ka go'an tahay baaritaanka kiiskaas kaasi oo la soo gabagabeyn doono 6 bisha September ee soo socota, ayna baaritaanka kala shaqeyn doonaan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. war-saxaafadeedka ka soo baxay amisom oo aad u dheeraa waxaa sidoo kale lagu yiri anaga oo daba socona bayaankii amisom soo saartay Agoosto 11keedii 2021 ee ku saabsanaa dhacdadii ka dhacday Golweyn, halkaas oo ay ciidamada amisom ku weerareen xubno ka tirsanaa al-shabaab iyagoo ku jiray roondo joogto ah. baaritaano hordhaca ayaa lagu ogaaday in 7 qof ee la dilay aysan ka tirsaneen al-shabaab ayaa lagu yiri warka ka soo baxay amisom. sidoo kale amisom ayaa sheegtay inay baarayaan wararka sheegaya in ciidamadooda ay mas'uul ka ahaayeen dhimashada 7daas qof, isla markaana ay la kulmeen markii ay dhacdadu dhacday odayaasha, xubnaha bulshada iyo saraakiisha dowladda una cadeeyeen inaysan raalli ka noqon doonin falal dambiyeedyada ka dhanka ah dadka rayidka ah ee askartooda geystaan, ayna u xaqiijiyeen in ay ka go'an tahay inay gartaan oo ciqaabaan ku wajibiya xeerarka howlgelinta ciidamadaasi u yaala. howlgalka amisom ayaa sidoo kale sheegay inay la shaqeynayaan dowladda federaalka ah iyo qoysaska ay dhibaatadu saameysay si loo sameeyo baaritaan degdeg ah oo hufan. hadalka kasoo yaray amisom ayaa waxa uu imaanayaa saacado un kadib markii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Rooble uu sheegay in dhacdadaasi loo saaray guddi wasiiro ah
oo maanta oo xada kulamo la qaadan doona safiirka Uganda oo fadhiya Soomaaliya iyo xubno ka tirsan ciidamada ee AMISOM. Toddobaadkii hore ayaa waxaa magaalada Muqdisho iyo qayb ka mid ah ee gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay barnaamijyo looga soo horjeedo dilkii ciidamada Uganda u geysteen dadka shacabka ah, waxaan ehelada ay sheegeen inaan meedadka dadkooda la aasi doonin ilaa tallaabo laga qaado ciidamadii ka dambeeyay falkaasi. ugu dambeyntiina magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka Galmudug wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in xalay magaaladaasi mar kale tiro madaafiic ah lagu weeraray. madaafiicda u muuqday kuwa magaalada banaankeeda laga soo tuurayay ayaa la sheegay inay ka dambeeyeen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab. wararka waxay tilmaamayaan in inta badan madaafiicda loo ganay dhinaca garoonka diyaaradaha ee Ugaasnuur, halkaasi ay fariisin ku leeyihiin ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. dadka deegaanka ayaa sheegay in madaafiicda kadib ay rasaas xoogan ka dhacday aagga garoonkaas, isla markaana ay rasaastu u muuqatay mid ay labada dhinac isweedaarsanayeen. ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi, balse al-shabaab ayaa inta badan looga bartay inay halkaasi weeraro ku qaadaan. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkaan war lamid intaynu dib ugu kulmi doonno. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.